الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد وعين كبلا بين آيات بقول يكوبي اللباتن سورة الأنعام قال الله تعالى إلهي بأوحد ولا تأكلوها عنين مما شيء لم يذكر اسم الله عليه مقع إلهي أن لقو حسين لقو قورع بسم الله أن لأوران مركي لقورعي وإنه لفسق كاسواء لك فقان شيء معصيه وإن الشياطين تكوى الله إله ذا لا يوحون إلى أوليائهم صاحبه ذو وحيودان إنسقاه ليجادلوكم سائدين إذن للضوضان هو إنسقاه وإن ضعتموهم هديها كتلقادتان صاحبك الشيطانك إنكم لمشركون وحنقنا إنسان كوى قالوا بي أو من كان ميت بولاي بل كورن قفك جيرئها إميدها بختية فاحيناه وأنو نوريني وجعلنا له نورا افتين بان ويالني يمشي به في الناس دتك دحدودا او كسocdo كمان مدميو لمid yahay مثله في الظلمات tilmaantiisu ay la mid tahay wax gudcur ku jiro kale laysa bi kharij minha gudcuriyasha kaba baxayo kadalika sida alla idin soo sheegay ee soo aragteen zuyina lil kaafiriin gaalada waxa loo qurxiyay shaydaan baa u qurxiyay ma kaanu yacmaluuna waxay sameynayaan xun wakadalika sida soo aragteen jacalna waxaanu yeelnay في كل قرية مقالة والبا أكابر مجرميها دنبيلياش يدكوا وين بدح يورره ليمكروا فيها شيء أشر قولان بودح جوعان وما يمكرون من أشر قوليان مهلاقيان إلا بأنفسهم نفوه دمويان وما يشعرون من قرنيان ويسلها قاكسين وإذا جاءتم آية دنبيلياش مركي معجسة وتمادا ما آيات قرآن قالوا حيليهين لن نؤمن الرمين ما ينبع أيضا حتى نؤتى شيرنا لسيو مثل ما أوتي وحي لسيو كلا رسول الله إلهي الرسول لديسي الله أعلم إلهي سقا وقبضا حيث يجعل ماشو ينيو رسالته وحي سي فريميس سيصيب الذين كوي وحكوها بسندونا أجرموا دنبابي صغار دل باكوها بسندل عند الله إلهي أكتيس وعذاب شديد يا عذاب كلل بما كانوا يمكرون شرقول كيسمين درادي لقمضي عربات بين كل حجرني وحيابها أي كون أكسنايا وحكم إذا إلى عدالة القرآن قاضي يشار إن برام وحي وحكم إذا سماها هي حماها الله بضا إلا الشيء يضع جبدنا الحسين نتيجة سين هربا وصارجني وحيكون فاني تريان وحلا إلى هذا رنت وأبي سفيان markii uu Yurub joogay isagoo safar ku jooga ninkii Hiraqla la oran jiray wuxuu yiri waa ninka la yiraahdo carabtu ka soo dhaxbaxo waa nabi yaa reerkooda ah oo iga warbixiyay Abi Sufyaan baa yiri aniga markuu nabiga ka waramayay isagoo gaalba ah waqtiga islaamin haddana arrimaha runtu ka wada sheegay siduu nabigu yahay buu sheegay markaa wuxuu yiri beenaan ku darsan lahaa haddana sharaftayda u baqay walla beenaan dhex dhigi lahaa buu colaada naga dhaxaysa Maxamed laakiin waxaan islaayahay buu gobonimada ka dhiman marka haddaad aragto ummad beenta caadaysato yiraahdo hebel miyay uga daraysaa inaanu beenta u sheegno faramadnaanta way u dhaantaa in inaga baa leey war madaxdeena baa leey war maxaad niyo beentaadu way nagu war dadku beenti ka kala daa suudi faramadnaanta u dhaanta inaan been u sheegan ku yiraahdo berri baan ku siino saadam baan ku siin deehi wuxuu la tagayaa buu yidii diila wanaagsan waa beentii ba halka marayso Abi Sufyaan oo gaal ahaana wuxuu leeyahay gobonimada ayaan ilaalinayaan been u sheegi waayay qira dayf waxa la yiraahdo martigeliyadana way ku feeni jireen nimanka Quraysh la oran jiray Sooriyada oo martida kamay seexan jirin ma oran jirin ka waxba siin mayna martida ah martida waa loo loogi jiray shayga la yiraahdo nin waxa kamid ahaa carabta la oran jiray Xaatim Daa'iyo deeqsinimada calanka u siday قبل بتريا فديسي والله الله يا وحول إذا ما صنعت زاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي أخا طارقا أو جار بيت فإنني أخاف مذمات الأحاديث من بعدي هذا هبلاي راشن سما يسوي وقد السما يسوه بالعيد لا عنته رادي أنا مرنا بكلي جاي عني كريم معي هذا وحكي له إذا مد ما لها لقينا يا ساقبه أما شارك مد وجياد
فإني أخاف مذمات الأحاديث من بعد وحنا كعب سنة يا تاريخ حمد يهم قروينان marka hadii aan kaliya cuno waa bakhiil baa la oranaya taasina waxay ku faani jireen baahaydo islaamkuna uu sii adkeeyay deeqsinimada adiga jeer waxa la yiraahdo ballantoo la oofiyay magantana cid ay magan galiyaan way difaaci jireen iyaduna wax wanaagsan bahayd nabiguna waa sii sugay ama sharcigeenu ajarna man ajarti ya ummahani ali ibn abi talib markii uu doonay nin gaala inuu dilo waxideeda ay ahaayeen ولا شيء بقى مجان جلس مجان هذا وانا أقبل يبون النبي عليه الصلاة والسلام من أنت ومهاني الأورانية waxay hadiyo jeer ku xisaabtami jireen iyagoo dhagxumada iska ilaalinaya sabirka iyo taxamulka arimaha adag oo halku dhigoodu waxa tajuucu al-hurra wala taakulu bi thadiyha ruuxa dumar gaajada way iska xijisataa naasiheeda ma cunto maamahooday kamid ahay wad baahantay looba bahal cunadii weey hadii aad markaa baahanto duruuf ay ku haysaday ku leeyihiin haday iyagoon islaam ba ahayn gobonimada ha iibsanin bayna heer hebel iyo dhagtaada iyo sharafta ka raac oo gunimaha inoo soo jiidin bay oran jireen bilaha xurmada leh iyo xaramka way xaq dhowri jireen inkastoo mararka qaar kood ay jeedin jireen sida quraankuba uu sheegay may guursan jirin hooyada iyo hablaha sidan gaaladu imika ay u guursadaan nikaaxul maxaarim wax la yiraahdo hadda gaaladu leeyahay oo waxay iskuursado dadka isdhalay iyo dadka walaalaha iyagu taama isticmaali jirin jinaabada way ka meeydhan jireen luqluqashada iyo cadayga way isticmaali jireen sida ragga qaar kood huuro lama dhiman jirin gudniinka way iska isticmaali jireen mararka qaar kood gacanta bay goyn jireen ka tuuga xajka iyo umrada way wadi jireen waxyaabaha soo dhan islaamku wixii wanaagsan uu sugay wixii xunna meeshu ka saaray nabiga waxa la weydiiyay calayhi salaatu wasalaam man akramu naas dadka yaa ugu sharaf badan marka waa kii ambiyada qaar ka mid ah sheegay marka waxay kolkii ay yiraahdeen taa kuma aan weydiin hadaa ma arab qabaa'ilkeeda ay weydiinaysaan buuri iyo noocyadeeda ha bay yiraahdeen marka rasuulku waxa uu sallallahu alayhi wasallam khiyaruhum fil jahiliyyati idha faqhu dadkii ugu sharaf badnaa islaamka ka hor ee sharafta ilaalin jiray ayuu markay diin ku darsadeen hadda ugu sharaf badan leen diintu wanaagoodiba wanaag ugu dartay almuhim waxay leeyahay waxyaabaha soo dhan islaamka asal u yihiin waana laga yaabaa diintii nabi ibraahim ee wax badan ka dhaxleen geesinimada iyo shahaamada iyo raganimada ay dhowri jireen kamid baahayd almuhim waxa soo dhan hadana marka iimaan waayaan seen hore u soo xusnay wax tirsan noqon maayaan waxa ilaahay u diiday halkan wixii aan magaca ilaahay lagu gowracin illa cuno wala taakulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi wa bakhtigi oo bakhtiga noocyadiisa waxaynu ku soo marnay suuratul maa'ida qaybaheeda hore aynu ku soo marnay noocyada uu leeyahay kii meel laga soo riday kii la tumay kii culays lagu dilay tii mid kale hirdiday waxa soo dhan waxyaabi bakhtiga ah ayaan shaygu hadii aan gowrac sharci ku dhicin waa bakhtigu dararka iyo dhibaatada uu leeyahayna haddaan cilmiga casriga ah waa ka marxaati kacaya mar hadaan dhiiga masfuuxa ah shaygi ka bixin caafimaad ahaan baa khatar u yahay sida maanta gaaladu ay ku sameeyaan xoolahana ma aha wax gowrac ma waxay koodhanayaan insaaniyada ama xuquuqda xayawaanka ka soo horjeeda neefka ku soo eegaya in bir la mariyo maxay sameynayaan marka way tooganayaan halkaas laga tooganaya isagoo bakhti ku dhow ayaa dabeetana lagu oranayaa gowrac kii muslimka laftiisa la oranayaa gowrac qaar koodna xayawaanka maba ka soo haraanba toogashada iyo sacqada electriga ama rasaasta lagu dhufanayo kama soo haraano way ka shubaan sida digaagad la toogtay ama la suuxiyay maxay ka soo kala hari marka culimada kale gaalada la jooga ee khibradda u leh masaariikhdooda iyo meelaha lagu gowraco jooga waxyaabaha ay ka soo waramayaan waxa kamid ah digaaga xataa kuwa ahlu kitaabka la keenay inuu bakhti yahay dilay sida gowraca bala ninba konton su'aaloodi weydiiyay bari dhaweedo xajka aan joogayo kamida waxaan ku shaqaystaa buuri gowracaasaan ka shaqeynaa markaan tafaasiishiisii weydiiyay inta badan bakhtiga ay isaga eegaatay digaagada ayada marka lagu soo dhufto horay bay ka sii dhimatay buu neefka weynina waxa laga yaabaa kolku ku soo gaareen aan mindida mariyo inaanu qaarkood dhaqaaqinba ila xoogaa buu soo soconaya ilbiriqsiyaa buu soo soconaya oo wareeg buu ku soo jiraa marka umuuman hubsiinay waxaan oo dhan u baahan yihiin gowrac waxa la yiraahdaa ka sharciga ah ee shuruudihiisa hore aynu soo sheegnay gowracuna waa cibaado waxyaaba ilaahay loogu dhawaado way subxaanahu wa ta'aala ilaahayna gaar u leeyahay
وإنه لفسق بولهاي وحان مقع إلهي لو قورعنا وألا كفقانشو مركا علماء waxay isweydiiyeen baabka hore inuu soo sharaxna filaya hadii aan bisinka loo qaban neefka xalaal ma noqonaya cunitaankiisu waxay u badan yihiin hadii ogaan looga tago inaan xalaal noqonayn laakiin hadii ilow looga tago inuu neefkaasi xalaal noqonayo cunidiisu saas u badan yihiin way intaasoo aayadood ba iyo intaasoo xadiis ba bisinka واجبين أمرين وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم شياطين توحي وحيودان أولياء ذوذا سيئدين للضوضان شيطان كوحو أولا قيمة يا قالك فلسفده كقول دودي لها يا وحيابه كقشك قليل لها ومروا البوحي لا تاقين شبهات يا شكوك إن يتذكر كفر المسلمين تا وإلهي يكشك قليان ودين تودا يكشك قليان haddada wax badan oo iclaamka qaar badan oo ka hadlaya oo qaar Soomaaliya ku jira ayaa marka tafsiirka akhriyayso waxay dadka ugu soo dhax tuurayaan mass media waxyaabaha ay ku shaki galinayaan oo Ilaahay ay kula doodayaan oo rasuulka ay kula doodayaan oo diinta Ilaahay ay kaga hor imanayaan waa nasiib darro weyn iyagana waxa waajib ku ah intaanay naftu xawla mariidka gaareen toobadu ka xidhmiyay Ilaahay u soo noqdaan subxaanahu wa ta'ala marka la yujaadiluukum ويدين شكي قلنا يا شيطانك إيه الكيسو سيدين لا ضوضاء هيا وحيس كدغا يا نمن عدالة صعبة نمن دحدحاده نمن حياديين إيه اسكدغا يا والكاسيد دبتنا دود بعض الكا كسليسن تاي كا waxaynu ka arkaynaa ilaahayna inuu awliyo leeyahay shayaatiintuna inay awliyo leeyihiin ilaahay awliyo leeyahayo waa kuwa uu u hiilinayo garab taagan yahay iyaguna diintiisa iyo dadkiisa taageerayaasha ah ee rumaysan ee ku qanacsan shayaatiintuna awliyo leeyihiino waa qolada garab iyo gaashaan ka dhigata shaydaan ee rumaysatay raacday marka waa inaad kala garataa alfarqu bayna awliyaa arrahmaan wa awliyaa ash-shaytaan farqiga leeyihiin bay aayaduhu ina barayaan waxa lagu kala garto ayaa ku cad ku muuqanaya إلهينا وحده وإن ضعتموهم إنكم لمشركون فيرس قد يد لقى هذا وطاعة آيات كي هور درس كي هور واحد درس كي هور واحد كسر مرين طاعة هل كان طاعة قفك واحد لو كلا سارة إنه ولي إلهي هي إنه ولي الشيطان طاعة ده يؤدعى إلهي بؤدعى إيه الرسول كيس يا وحيجة وولي إلهي الرسول كيس يبو عاسي دين تنوع عاسي وكفلا جوابي شيطان بؤدعى شيطان هذا دعنا ولا جو قالوا به لا مشركون بإلهي عدي وهذا القرآن كاي مركا إسكافير صو عدة كتلقى هذا نيس الأرهن موديس يجا كو أفتر سنيس التاجريس وعدة هذا داعي سواء أي وإلهي رسولك قال يا إسلام حي تسأله كلا ليهين إلهي بكو عدي آيات كان دين تأيه وحي جو حلقة هلا لا أرهن عجيبة نلل يا نور قال لماذا الدين الآن تروح على قلق الماء كيري يقدعر كيري يقدعر الكورن لا بدأ أرمه كلون نولي هاي نور نوها يستاح نول العافمات قفت إما كقفك الدنيا ذا نشوفها عافمات قوا إن سرير دكتور سهرين وحضور هينين إفتين نكسو أنا ماشو مرة يضع إفتين كسو عرية حياة ذي سير نولشي فيها سعادة أي لا راح لكن قفك بوكا أما جيريسن أما رفاتسن كدعرنا كتيرة سعادة ما أكتر تصالها موضة ودليش تصالها كلا أو من كان ميتا فأحييناه كورا متك جيريا هاي النوليني أنا ماذا التفسير كقاروح إلى هذا وحي كسود دجان أصحابته كوي بري هراء أتكا قار كميده هو إسلامي سيد عمر بن الخطاب وكلا هي حمزة بن عبد المطلب نبي قادرك rag markii hore suti gaashaana bay hanoo adag geeri bay ku sugnaan gaalay ahay markaas uu ilaahay nooleey haday sababtaasi jirtayna oo riwaayadaasi ay sugan tahayna waa caamun aayadu laakiin kuma koobna asxaabiga ku soo deg wajacalna lahu nuuran yamshi bihi fi an-nas iftiin baanu siinay dadka uu ku dhaxmarayo ma qaloonayo ma qarsoomayo noloshiisu male madmadow كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ميول ميدي هميد قعود يال ku jiro markii soorana geeriya haayo aan ka baxay abi jaal iyo rag lamida salkaas uu ka raac waxba yaa la isu ka xayeysin layr waa weyn oo nuclear ku baxaya waxba yaa lagu soo shidan
layrka iyo iftiinku qiimaha leh waa ka quluubta waa ka laga sahay qaadanaya quraanka iyo diinta iyo masjidka iyo waxyiga Allahu nuuru samaawaati wal ardi suuratu nuur mathalu nuurihi kamishkah fiiha misbaahun lilmisbaah halkaa ka sii wad waxaynu uga jeednaa yuuqadu min shajaratin mubaarakatin zaytuunatin laa sharqiyatin walaa garbiya waa aayadahaasaa laga qaadanaya waxa markaa rabbuna subxaanahu wa tacaala uu haddana xusayaa mar kale dadka waxa ugu daranba diinta ilaahay iyo dadka mu'miniinta ah oo aada uga soo horjeeda intuu ilaahay uba nicmeeyeyba inta uu awoodda siiyey ee aqoon uu siiyey ee adduuniya maal uu siiyey kuwaasaaba ugu daranba hadda waa kuway ahayd nicmada ilaahay inay aada u mahadnaqaan waxa isweydiin leh talow maxaa dadka ka soo horreysiiye fuqarada iyo masaakiinta iyo ducafada ay uga soo horreeyaan ay rususha ugu soo duulayaan ay diinta ugu soo duulayaan ay shirqoolka u wadaan shaydaankii marka hore ay u rarnaayeen baa dhegta xu saaray wuxuu dadku iskuma jire idinku waa labantii waxba idinkama maqna wax walba waa haysataan haddii meeshan rag kale ku soo biiro haddii halkan lagu soo biiro cid kale ay timaado diin iyo wax wada cidda wax waayeysa wax ka naaqusaya waa idinka difaacda bi waaye waxa la wixii soo kordhayaba difaaco garab gaashaanka u daruura ila intiinana la isku qabsanayaa luqadu wuxuu ugu sheegay shaydaanku waa caynka dabeetana madaxtinimadii iyo maalkii wixii oo dhan makriba isu rogayaan iyo shirqool markaas hadiye jeer rususha waxa ka hor iman jiray uun dadka maalqabeenka iyo madaxda ah waa ku quraanku u bixiyay magaca al-mala halkana wuxuu u bixiyay akaabira mujrimiha deegaan walba dadkiisa dambiilayaasha ugu waaweyn wakadalika jacalna fi kulli qaryatin magaalo walba iyo deegaan walba waxaanu yeelnay akaabira mujrimiha magaalada dambiilayaasheeda kuwa ugu waaweyn ayaa dhex yuururay dalab shaqadoodu waa maxay xoolahoodii bay ku mahadnaqayaan maxay sameynayaan ilaa waa mujrima mahadnaq ma jira layamkuru fiha magaaladaas ay shirqoolayaan waa makriguna wuxuu caadiye weeye dadka had iyo jeer ilaahay u nicmeeyey markay gaaloobaan ifsaadkay ka shaqeeyaan aqoontoodu dalkiiyo dadka lagu fasaadinaya adduunkooda dadkiiyo dalka lagu fasaadinaya awoodooda caalamka lagu kharaabinaya makrigoodu mid yarba maahaba siduu ilaahay cadeeyay waa in kaana makruhum litazuula minhu aljibaal buuruhu dhaqaajin gaarayda ilaahay uu shirqoolka iimaan laawayaashu kuwa akaabirul mujrimiin dambiilayaasha waaweyn ee dalalka joogay dunyada joogay kufriga hor kacaya shirqoolkoodu waa mid istaba taxano waqti dhow iyo waqti dheer leh loo maleegayo dadka diinta dalka wamaa yamkuruuna ilaa bianfusihim wamaa yashcuruuna waa jawaab ilaahay uu siiyey oo shirqoolkaasi iyagunbuu ku soo ururayaa mase garanayaan ilaahay baa kala tuuraya subxaanahu wa tacaala wayamkuruuna wayamkuru allah wallaahu khayru lmaakiriin haddaanu ilaahay kala tuuray miyaa la ina arki labaha ummadda islaamka iyo diinta islaamka makriga iyo shirqoolka loo dhigo oo mid loogu talagalay in waxba soo kala adhin laakiin dadku ilaahay bay leeyihin oo diintu ilaahay bay leedahay saasaa lagu badbaadaya adiguna taa aamin oo waxay isku dhoobdhoobayaan yuu marada kuu tuurin waidaa jaa'atum aaya hadday mucjisa timaadana iimaan la-aantooda halkan ay gaadhsiisan tahayoo iyo kibirkooduyo waxay leeyihin lan nu'mina xataa nu'taa midla maa uutiya rusulu llah ma rumaynayno ilaa rasuullada wixii la siiyey nala siiyo oo maxay haddee waa nebinimada iyo waxyiga waxay leeyihiin annaga ha nalagu soo dejiyaba waxy oo ilaahayba ha nala hadlo oo sida rasuulka wax loogu sheegay annaga ha naloogu sheegay bal yuriidu kullu imri'in minhum an yu'taa suxufan munashara mid waloo iyaga ka bidi waxaa u sugayaaba xaashiye kala baxsan in loo keenaba waxa weeye iska dheh iyo edab darrada iimaan la-aanta labada lafduljalaalo isku xiga qur-aanka waa halkan weeye sidaa daraaddeed baa miimka u taagan wuxuu u taagan yahay waqaf laazima xataa nu'taa midla maa uutiya rusulu llah allahu aclamu xayثu yajcalu risaalata ilaahayna wuu jawaabo wuxu uhi ma ilaahay baa la tilmaamaa gaal yuu ilaahay isu tilmaamin oo odhanin aniga waxay siiye ilaahay halkuu risaaladiisa dhigayo iyo fariimihiisa iyo waxyigiisa wuu yaqaanaa
إلهي عيد وشيء بيس سبحانه وتعالى عد أهل كواهنا ورسولك صلى الله عليه وسلم يقال محا أبالوه سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب أليم بما كانوا يمكرون وحكود عدونا دنبيلياشة دلي قال واحد كارك كبر كأبالك سوى دلي ما أنت قيامها وحل صور رنا يا أبو النبي عليه الصلاة والسلام دنبيلياشة يجا أول قرآن شذا لكن صور بني آدم له حاله يريري ده كل كورة إسلوى وينا روحنا هين بيسوها يستي كل كسائل هاي والناقصي إلى اللي بدي قارين مركا دولي الدنيا ذا كم وقرية يدولي آخرة دين الآن تانا دولي لا عسى كسته هيستان إليهين شرف كسته هيسبدان لكن دين الآن ودولي الدنيا من آخرة الله سبحانه وتعالى